السلام عليكم جمعة wanaagsan dhammaantiin aad baan idin salaamayaa maanta casharkeena xaggan waxaynu kaga hadli doonaa osteoarthritis-ka ku dhaca jilbaha iyo miskaha waana runtii xanuun si daily aan anigu personal aan u arko oo dadkeena waaweyn especially saameyn xoogan ku leh marka maanta waxaynu kaga hadli doonaa marka osteoarthritis-ka waxa uu yahay iyo calaamadaha lagu garto qofka osteoarthritis-ka qaba waxyaalaha lagu baaro especially radiology modalities-ka lagu baaro iyo waxyaalaha kasoo muuqda iyo sida loo daweeyaba osteoarthritis-ku waxa weeye waa nooca ugu caansan ee arthritis-ka arthritis-ku marka waa inflammation-ka ku dhaca joints-ka ama laabatooyinka marka osteoarthritis-ka ayaa ah the most common form ugu caansan marka arthritis-ka osteoarthritis-ku waa common wuxuuna saameeyaa boqolkiiba 25 dadka adults-ka ah inkastoo boqolkiiba 45 la gaarsiiyo especially marka qofka da'diisu ay kor usii kacdo adduunyahana waxaa la qiyaasay dad ku dhow 300 milyan oo qof inay la nool yihiin xanuunka halkan waxaan ku haysanaa anatomigii jilibka waxaana rabaa in yar inaan ka hadlo bal jilibka ama jointigu sida uu u samaysan yahay ku yaala jilibkeena marka knee jointiga ama femorotibial joint waxa sameeya labada lafood ee loo yaqaano femarta iyo tibiyada marka labadan lafood dhexdooda ama xagga ay midba midda kale ka qabsato waxa ay ku leedahay wax loo yaqaano articular cartilage waa carjow Soomaali ahaan carjow bay noqonaysaa waana carjowda u dhaxaysa labada lafood marka basically joint walba ama laabato walba oo jirkeena ku taala mostly waxay leedahay articular cartilage ama carjow ay lafta kale ku qabsato si ay uga hortagto in ay friction ay isku sameeyaan ama culays ay isa saaraan marka jilibkeena labada lafood ee sameeya mid walba waxa ay leedahay cartilage ama carjow ay kaga hortagto in lafta kale wax dhaawac soo gaarsiiso marka sidoo kalena jilibka waxaa laga helaa waxa loo yaqaano meniscus marka lateral meniscus iyo medial meniscus waxa weeye iyaguna waxay u dhaqmaan inay kala ilaaliyaan labada lafood in wax dhaawaca ama ay soo gaaraan marka articulate-kani marka wax dhaawac ah uu soo gaadho ama wax inflammation uu soo gaadho waxa ay sababtaa osteoarthritis ama labadii lafood inay isxoqaan oo ay isqabsadaan marka that's why waxa sababa xanuunka jilibka waxa weeye marka labada lafood ay midba midda kale ay taabato marka especially qofku marka uu soconayo sidoo kalena lafta misigtu waa lamid lafta misigta waxay ka samaysan tahay acetabulum oo ah kaabudka meesha uu galo iyo sidoo kalena femoral head marka headka femortu waxa uu galaa acetabulum oo lafta misigta ah kadibna halkaas waxaa ka samaysmaa hip joint marka sida caadiga ah labadan lafood iyagana waxa u dhexeeya cartilage ama articular cartilage-kaasina midba midda kale waxay ka ilaalisaa in laftu ay isku dhacdo ama ay isxoqdo marka osteoarthritis-ka laba nooc baa loo qaybiyaa mid waxaa loo yaqaanaa primary ama idiopathic osteoarthritis kani waxa weeye waa ka la garan layahay clinically wax sababa sababtoo ahna hadda waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay normal aging process qofku marka uu macnaha weynaado ama da'diisu ay weynaato in xanuunkan uu ku dhaco oo normal ay tahay laakiin kan maanta rabno inaan focus garayno waxa weeye ka loo yaqaano secondary osteoarthritis especially secondary osteoarthritis wuxuu xataa iminka uu aad ugu badan yahay dadka dhalinyarta ah aan weli da'dii 40 ama 50 aan gaarin sababta ugu caansan ee sababtaan waxa weeye obesity ama qofku marka uu culays saa'ida jirkiisa uu saaran yahay sababtoo ah obesity-gu ama culaysku waxa uu weightku waxa uu culays uu saaraa jointiska especially jointiska loo yaqaano weight bearing jointiska jirkeena culayska xejiya ama culayska haya sida jilbaha iyo miskaha that's why jilbaha iyo miskuhu ay yihiin meelaha ugu badan ee osteoarthritis-ku uu ku dhaco
sidoo kalena secondary osteoarthritis-ka waxaa sababa waxa loo yaqaano post-traumatic osteoarthritis oo ah arthritis-ka ka dhasha marka jointiga uu previous injury uu soo gaaro ama dhaawac hore soo gaaro. Especially tani waxay common ku tahay young adultska, dadka yaryar ee dhalinyarada ah ee jilbuhu xanuunayaan ama miskuhu xanuunayaan ama any other joint xanuun uu ku jiro. Haddii wax injury-a uu soo gaaray beri hore, then waxaa laga yaabaa in jointigu marka osteoarthritis uu kaga dhaco. Halkan waxaan ku haystaa sawir, kan waa jilibkii caadiga ahaa, kan waxa weeye waa jilib xanuunsan oo osteoarthritis uu ku dhacay. Hore waxaynu ka soo hadalnay waxa loo yaqaano cartilage ama carjow oo u dhaxaysa laf walba iyo labada lafood xagga ay ku kulmaan dhexdooda. Marka cartilage-tu waxay ka hortagtaa ama ay ilaalisaa laftan iyo laftan kale inaanay wax injury ama dhaawaca aanay soo gaarsiin. Sidoo kalena especially knee-da ama jilibka waxaa laga helaa waxa loo yaqaano meniscus oo iyaguna u dhaqma as a cartilage oo iska ilaaliya labada lafood inaanay isku dhicin. Marka waxaan haysanaa lateral meniscus iyo medial meniscus. Marka haddii osteoarthritis uu dhaco, especially qofku marka uu weight ama culays ama miisaan dheeraada jidhkiisa saaran yahay, waxa uu sababayaa in culays badan uu ku dhaco jointigii, kadibna labadii lafood ay isku soo dhawaadaan, kadibna dhaawac uu soo gaaro marka cartilage-ka ama carjowdii u dhaxaysay. Sidoo kalena inflammation uu ku dhaco carjowdii. So X-ray-du waa waxyaalaha ugu muhiimsan ama sidoo kalena ugu fudud ee la samayn karo si qofku marka loo arko in osteoarthritis uu qabo iyo in kale. Saddexda sign ama saddexda feature ee radiologically ugu caansan ama basic-ga ah ee lagu arko osteoarthritis-ka waxa weeye joint space narrowing, in space-kii u dhaxeeyay labada lafood narrowing uu ku imaado ama ay soo yaraadaan sababtoo ah distractionkii ku imanayay cartilage-ka u dhaxaysay. Sclerosis, especially subchondral sclerosis, in lafihii sclerotic ay noqdaan ama ay new bone formation ay noqdaan oo caddaadaan. Sidoo kalena osteophytosis ama osteophytes oo ah lafa yaryar oo bony outgrowth la yiraahdo oo kasoo baxa marka jointiska agtooda. Intaynan u gudbin X-ray-da osteoarthritis-ka, kani waxa weeye sawiradani waa normal knee X-rays. Waa qof jilib caafimaad qaba sawirkiisii. Waanaad ujeedaan in wax joint space narrowing aanay u dhaxayn labada lafood, lafta femurta iyo lafta tibiada, in space-koodu normal uu yahay, especially space-ku maadaama uu yahay cartilage uu yahay, waxa uu ekaanaya madow maadaama density fara badan aanay lahayn cartilage oo ay kaga soo muuqato X-ray-da sida laftoo kale. Then radiolucent weeye marka. Same as the hip, misigta haddaad eegta ida lafteeda femoral head iyo acetabulum space-ka u dhaxeeya waad ujeedaan ee madow. Marka waxa weeye waa cartilage ama jointiga xaggii ay ku jirta weeye. Okay, haddii osteoarthritis uu dhaco markaa sidee buu u ekaanaya jilibkaagu X-ray-da? You see in space-kii u dhaxeeyay labadii lafood ay soo yaraadeen oo basically labadii lafood iminka ay afka isku hayaan oo isxoqayaan. Waxaa loo yaqaanaa joint space narrowing. Deetana that's why qofku marka uu soconayo uu xanuun u dareemayo marka uu dhaqaaqay, sababtoo ah basically labadii lafood wax kala celinaya oo u dhaxeeya ma jiraan. Deetana waxay bilaabayaan friction inay sameeyaan oo ay isxoqaan. That's why badanaa xanuunku uu ka imaanayo marka qofka uu soconayo. Marka qaybta gudaha ah, marka qaybtan waa qaybtii medial side-kii. Qaybta medial side-ka ah ayaa badanaa la affect garaya ama saameyn ku yeelata marka lala barbar dhigo qaybta lateral-ka ah. Laakiin mar walba oo xanuunku si advanced garoobo waad arki kartaa labada dhinacba in osteoarthritis-ku uu ku dhacay oo joint space-ku narrowing uu ku dhacay. Sidoo kalena calaamadaha dheeraadka ah ee lagu arko radiograph osteoarthritic knee waxaa ka mid ah bony outgrowth ama waxa loo yaqaano osteophytes. Osteophytes-ku waa bony outgrowth ama waa lafa yaryar oo kasoo baxa jointiga agtooda marka distractionku uu imaado. Waana ujeedaan lafa yaryar oo aad u yaryar oo loo yaqaano bony outgrowth oo kasoo baxayo. Calaamada saddexaad ee lagu garto waxa weeye subchondral sclerosis ama
laftu inay sclerotic noqoto especially qaybta subchondralka ah. waan u jeedaan sawirkan skyline viewga sida bateeladu ay lead yar oo cad ay u samaysay ama sclerotic ay u noqotay. So subchondral sclerosis sidoo kalena waa aad ka arki kartaa dhinacan kale. sawirkan isagu waa CT scan qof jilibkiisii. CT scanku isagu wuxuu ku fiican yahay in osteophyte-ka iyo bony structure-ka si fiican uu usoo saaro marka x-rayda lala barbar dhigo. marka la qaado isaguna waad u jeedaan qaybtan sagittal view-ga in lafta bateeladu ay leedahay osteophytes aad u fara badan oo waaweyn. sidoo kalena subchondral sclerosis iyo joint space narrowing qaybta coronalka waad u jeedaan in spacekii uu yaraaday, outgrowth fara badan uu kasoo baxay spaceka agtiisii, sidoo kalena osteophytes fara badan ay ka jiraan. sawirkan isagu waxa weeye waa hip osteoarthritis, waa misig x-raydii pelvic x-ray. haddii aad eegto misigta midig ama right hip waad u jeedaan in spacekii u dhexeeyay femoral head iyo acetabulum completely destruction uu ku dhacay, sidoo kalena cystic formation ay samaysay. waxaa loo yaqaanaa subchondral cystic formation ama subchondral cystis, waa calaamadaha sidoo kale lagu garto osteoarthritis-ka x-rayda. so haddii aad isbarbar dhigto misigta midig iyo misigtan bidix waad u jeedaa misigta bidix in relatively iyadu aanay si badan aan saameyn aanu yeelan, iyadoo osteoarthritic way lafteedu, laakiin spacekeedu waa relatively preserved way ama wax badan saameyn laguma yeelan marka lala barbar dhigo tan midig. kan waa patientkii hadda aan ka hadlaynay. haddii aad u jeedo waxaan odhanay halkan waxaa ku yaala wax loo yaqaano subchondral cystis ama cystic formation. marka cysticgii waad u jeedaan CT scanku sida uu tusayo femoral head qaybta chondralka in cystic formation ay yeelatay, sidoo kalena marka axial viewga CT scanka aad aragtid. so cystic formation waa qayb ka mid ah iyaduna calaamadaha lagu garto osteoarthritis-ka. qodobka ugu dambeeya ee aan kusoo rabay inaan kusoo gabagabeeyo waxa weeye osteoarthritis-ka maadaama uu yahay xanuun saameyn badan ku leh dadkii waayeelka ahaa iyo haddana weliba dadkii dhalinyarta ahaa ee obese-ka ahaa. waa maxay waxyaalaha lagu daweyn karo? waxa ugu horeeya ee qofka lagu recommend garay waxa weeye inuu weight loss uu sameeyo ama exercise uu sameeyo si miisaanka dheeraadka ah culayska saaraya jointiskiisa ama laabatooyinkiisa uu u lumiyo si markaa uu u bogsado marka. sidoo kalena waxyaalaha qofka uu qaato waxa weeye single analgesic in qofka la siiyo dawooyin analgesic drugs sida paracetamol, tramadol in patientada iyaguna ay qaataan. however patientsku haddii severe uu noqdo xaaladooda especially xaaladda aan anagu aragno daily waxa weeye patientada waxay imaadaan marka ay too late ay tahay ama wax walba xadkii ka baxeen severe osteoarthritis ama grade 4 osteoarthritis uu ku dhacay oo jointigii dhammaanteed destruction uu ku yimid, space aanu jirin. then qofku markaa wuxuu u baahanayaa waxa loo yaqaano total knee replacement ama total hip replacement, which we do in our hospital actually, oo ah in qofka laga bedelo markaa misigtii xumaatay ama jilibkii xumaaday in qalliin lagu sameeyo, kadibna wixii infected noqday ee xumaaday ee degenerated noqday inta laga soo saaro kadibna loo geliyo markaa prosthesis. so waad u jeedaan sawirkan labaad waxa weeye waa left hip complete ama total hip replacement, tan waxa weeye waa total knee replacement. then tana loo tixgeliyaa marka inay tahay the most effective treatmentiga qofka la siin karo marka osteoarthritis-ka uu severe uu noqdo. thank you so guys, aad baad mahadsantihiin inaad si fiican u daawateen videogan. haddii information fiican aad ka faa'iiday please share this video with your friends. thank you so much, have fun.